sirwade media kaga bogo barnaamijyo ku xiiso geliya daawade haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada mahadsanid maxay tahay qofka in uu sameeyo da'da 20-meeyada si uu uga fogaado shalayto da'da 30-meeyada iyo 40-meeyada jawaabta su'aashan waxaynu ku soo koobi doonaa 5 qodob qodobka koowaad ku sameey isbedel naftaada haddaba daawada sidee daawade haddii aad tahay hadaf la'aan noloshaada macno ma laha sidaa darteed samayso hadaf aad tiigsanayso kadibna degso wadiiqooyinka ama wadooyinka aad ku gaari lahayd hadafkaas qodobka labaad u bedel talooyinka ficil daawade waxaa laga yaabaa in aad heshid talooyin kala duwan oo guul noloshaada u horseedi karo haddii ay ahaan lahayd kuwo aad ka heshay buwaag aad akhrisatay ama dad khubaro ah laakiin aysan noloshaada waxba ka bedelin talooyinka waa maxay sababtoo ah waa daalacata ama dhageysataa laakiin uma bedeshid talooyinka ficil isku day daawade in aad talo walbo aad u aragto in ay faa'iido u leedahay noloshaada aad u bedeshid ficil qodobka saddexaad jooji raadinta xalal kale oo fudud adigoo u hayo xal dhibaato markaa ku soo wajahday laakiin uu halkaas kula muuqdo mid adag sababtoo ah waqtiga aad ku raadinaysid xalkaas fudud waxaad ku qaban kartaa xalka gacantaada ku jiro qodobka afaraad ku taagnaaw wadada aad ku gaari lahayd hadafkaaga daawade waxaa hubaal ah in aad la kulmi doontid caqabado badan si aad u gaartid hadafkaaga laakiin waxaa mar waliba maanka ku haysaa in wax waliba oo qiimo leh aysan sahlanayn sida lagu heli lahaa ama lagu gaari lahaa qodobka shanaad rajo ha ku ekaanin ee la imaaw qorshe daawade haddii aad ku ekaatid rajo oo kaliya laakiin aadan la imaanin wax qorshe ah ogaaw in aad dhex dabaalan doontid fashil iyo shalay sidaa darteed la imaaw qorshe maalinle ah adigoo raacayo wadooyinkii aad horay u degsatay kuwa oo ku gaari lahayd hadafkaaga ugow daawade waxaa muhiim ah in aad hal tallaabo Allah ka dhigay aad maalintii hore u qaadid maalin waliba daawade waxaan rajaynayaa in aad muuqaalka ka heshay fadlan haddii uu ku qanciyay like-ta iyo subscribe-ta hala dhaafin mahadsanid